بسم الله الرحمن الرحيم وعنا وناكسن داوديال meel kastoo dunida daafeeda ka joogtaan bartaad naga daawanaysan bana kala socotaan waa galbeed TV xaruntiisa magaalada Edmonton ee dalka Canada sida hore looga barateen toddobaad kasta habeenka xataa waxaan soo gudbinaa barnaamijyada xagga siyaasadda amba dhaqanka ku saabsan runtii caawa waxa khadka nagu jira telefoonka ee nagu soo booqan kari waayay raba inuu nagala qayb qaato barnaamijka waa aqoonyahan iyo waxgarad odayaasha Soomaaliyeed kamid ah runtii oo la yiraahdo Axmed Jaamac waxaan xasuustaa inuu hore u dhiibay wareysiyo hore oo xagga siyaasadda ka hadlo inta badan runtii Axmed Sulaymaan ku soo dhawow khadka hadaadna maqlaysid waa dhawahay bismillaahir rahmaanir rahiim marka hore waxaan salaamayaa bahda saxaafadda marka xigta waxaan salaamayaa galbeed TV oo ah runtii halkamaaway ama waxaan baneeyo ummadda Soomaaliyeed si uu gaarsiiyo iyo Soomaaliyeedooda iyo daacadnimadooda aad iyo aad waxaan baneeyaa assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh inaan maanta idinku soo noqdo muddo toosanaan aynu wada shaqaynaynay aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed adiga ayaan kaaga mahad celinaynaa waqtigaaga qiimaha leh runtii noo hurtay waxaan rabnay caawa inaan kaa weydiino dhowr su'aalood oo ku sugan siyaasadda amba marxaladda Soomaaliyeed maanta ay marayso bal haddii aan u gudubno hadda su'aalaheena su'aasha ugu horeysa Axmed waxaan ku weydiin lahaa waxa tahay nin ka soo jeeda deegaanada Khartoum State in badanna ka hadla arrimahaas oo u ololeeya goon isku taagga maamul goboleedka Khartoum State haddii aan su'aasha koowaad u gudubno Axmed waxa jirtay wada hadallo maalmahan dambe socday oo Somaliland maamulka Hargeysa ama Somaliland iyo u dhaxeeyay Khartoum xagaas wax ma nooga sheegi kartaa waa hadal fiican marka hore intaan taagin waxaan salaamayaa dhammaan ummadda Soomaaliyeed meel kasta ay joogaan waxaan salaamayaa dowladda cusub farmaajo hormuudka u yahay ra'iisul wasaaraha ra'iisul baarlamaanka golaha baarlamaanka wasiirada ummadda Soomaaliyeed dhammaantiin waan salaamayaa gaar ahaan waxaan salaamayaa ummadda reer Khartoum iyo ummadda reer Omar waan salaamayaa madaxweynaha Khartoum madaxweyne ku-xigeenka ra'iisul baarlamaanka golaha wasiirada iyo ummadda reer Khartoum oo dhan meelay joogaan waa salaamayaa salaan kadib walaal arrinta ay weydiisay waa laba qaybood waxaa iskale siyaasadda iyo maamulka qaybna waa qayb international oo qoran oo aan aragtay khudbadeeda arrintaasi way jirtaa madaxweynaha iyaguna waa ku dhawaaqay ra'iisul baarlamaanka inuu isu guddoomiye ka ahaa waa socotaa weli wax go-aana oo ka soo baxay ma jiro wadabahoodu dhacaa soo baxay taasoo darmudii labada dhinacba in ummadda walaalaha ah iyo wiilka dhimanaya wada joojiyo in xaqiiqda la isugu tago in wax aan soconayn aan waqtiga la iskaga lumin sidii ogsoonahay waqooyi Somaliland marka Somalilandka waa maqlaa waa runtii laan waa dhulka laakiin ma la isku weydiiyey dhulka yaa degan may waan garanay Axmed waan garanay taasi dad badan way ogyihiin sida deegaanada loo degan yahay iyo dhulku siduu yahay wada hadalkaas jira ee socda halkee weynii maraya qodobada ka soo baxay waan ogsoonahay wada hadalkii hadda intaan ognahay wax ka shisheeyo ogtahay ma jirtaa hadalkaas meel fiican maraya marka uu sheego runta inta anigu aan shacab ahaan ogahay fadhiyada dambana wuu noqonayaa waqtigeedaan wuu qaadanayaa muhiimadana waxay ahayd in dadka nabadgelyo isku dhex maraan in la ilaaliyo mataqaanaa nabadgelyada in ummaddu u wada doonato waxay xaq u leedahay qof walba xaqiisa u helo haddii heshiiskaasi dhaco dee dadka kale waddanka degan ay kasoo qayb galaan sida Owen State, Markham State taasna waa loo baahan yahay dabadeedna inta la heshiiyo waqooyi ahaan wax loo wada doonto iyadoon cidina cid ku biirayn cidina cid odanayn u dowladeynin in danta ummadda
قومي يوم الحاسم. ويا أحمد أدود مع سنتاي سيدو أركتا خاتمة وده هذا الله أسعد الصوماليلاند هذا استبتشوجا إن خاتمة استد موحي تاي أبو وليكو عند عون ساير بتاع معمول قبلات جونيس كتاجا وكم إذا معمول قبلات إذا دولة الفدرال كا مسوي هذا الذي هذا وحوس سعدان si ay Somaliland iyo khaatumo isteeday u noqoto maamul amba loo kala qaybiyo maamulkii Somaliland oo laga dhigo laba maamul goboleed horta maamul inay noqoto kelmadda waxaan kaga jawaabayaa xalfado maamul isagii international la wada yahay wadahadal kan hadda loo hadlayaa mid ku ah Somaliland iyo khaatumo waa international community African Union كاوك هدي أو قاعدة الكونستيوشن كخاتمه قضبط كمية أو حاجة يعني خاتمه إنه تفعل بقى وإنه ممكن يديها واحد ما حد كلام معكم إنه يجي ريحة الحلال لكن كل جيل الكونستيوشن كا هدي سامسونال يعني إنه خاتمه في المثال سرعة الوان صحيح بعد ما يقوله هي عدين هي إنه كحي خاتمه مامو يلا نروح واحدة هذه بسيط على مرحلة أما بعد ما أجي مكان خاتمه ومامو سمعنا لأنه مامو أما مامو بعرض لحظة أما مامو بعرض كيسمية كل اللي عندي قصة كيف تيجي تحضره سيدا ويا هذا الكو خاتمه ومامو كلها يرد الكو أخصائي مد الكو أخصائي ما maamulka Soomaaliland muu aqoonsiyaa inay tahay khaatumo maamul buuxa nacam waa caddahay oo xad wariista xad ku qoran wariye dib ugu noqo constitutionka dastuurka Soomaaliland bishii hore ahayd maalintii ansixiyeen baarlamaankooda 44 qof ka aamusay inay khaatumo maamul tahay ayna ma shirayaan bana fadhiisanayaan maamulka haddaan dhanka kale eegno dowladda federaalka waxaan ogsoonahay inay hadda in muddo iyagoo wada hadallo lafteeda amba khaatumo isteeday ay rabto in wixii ay heli lahayd xaqa u lahayd hadday tahay samafal hadday tahay wax kasta oo dowladda federaalka soo maraya inaanu Puntland lagu soo dhiibin maamulka Somaliland lagu soo dhiibin laakiin ahaato mid yada toos ugu imanaysa hadda waxaan ogsoonayn samafalkii amba waxqabadkii hay'adaha laga soo qaaday ee dowladda federaalka ay ku soo caawisay inay toos ugu timid maamulka khaatumo state horena uguma dhicin arrinkaasi marka taasi ma waxay tahay hiddiilo cadaynaysaa inay tahay maamulka khaatumo state ay dowladda federaalka ay aqoonsatay ay u ansixinayso amba ay rabto maamul gooni isku taaga bismillah horta maamulka kale uu dhisay oo cidna kama qabo ومركز قدر الكوان قدر كلابات دولة الفدرال خلاص ده ومامر السوق وهذا اللي كنت فينا أنه هذا واحد نقول أنه خاتم أحد دولة المجتمع ولا برلمان الوزير أنه ولا نهاية ولا يجري نقول أنه هاي يتريع وما نقول هاي تريع ولا بدري ولا بدري كرا تاس وأنه على إنه إننا نحقق يجي وسير إليهم أو وسير الدولة هذين أو عندنا سلعة أي تحي وحنا نقلوه الصومالي وملا أولي وحنا الصومالي ما ممكن لو تفصيلين أو ما ممكن لو تفكروا كانوا أنا أنت كتبوا كل شيء كنتينا عشنا تعطي بودلان وأنا وقت ما نحسب درسناي نسقط السلعة سووا حي تمبريري وحنا نعتبرين كريات استحي هذا أخذه الكونستيوشن كبودناي وكتبته تبدأ لك بعد المسلمين مع زاحي تبدأ لسنا وعطماته حتى لو تبدأ كل حي سلا سبحان الكونستيوشن كأوضحني وإحنا وصلنا مع الملاذي وإحنا لبحي أمجرته هم فرق يعني من قليل من قليل نقول فرقلين تلاقي داعيان هو عليك عمود على إسكال الصحاري ذلك وايا أحمد maxaad noogu sheegi kartaa xagga kale waxaan ogsoonahay inay jirto dagaalo gudaha ka socda oo ka dhaxeeya labada reerood amba reerka dhulbaante jufooyinka wada dhashay walaalada
dagaaladaas maxaad nooga sheegi kartaa oo horena u dhacday beri horena socday muddo ah aad iyo aad baad u mahadsan tahay aad iyo aad baad u mahadsan tahay kuna way jiraan arrimahaasi dad badan baan kula dhaawacmay mas-uula waxaa ka ah puntland iyo somaliland xasadan puntland ayaa arrintaana ku leh hub iyo lacag iyo maalka kubkiisa oo wax magarato oo magac nala sheeganayaana loo isticmaalaa maxay hub iyo maal maxay kaa dhex galee maxay hub iyo maal ku bixiyaan mase reerku isku dili laaba hub iyo maal lagu bixiyaa waxaa lagu bixiyaa alqalab ah in maamulka khaatimo lagu burburiyo dagaalooyinkido meesha tawaati lagu magacaabay meel mataqaana ammaana ma aha meel keliya ma aha waa tii labada maamulka qoreen waa tii ay qoreen lama tiri karo waa tii qoreen mataqaana ay dad la xukumi kara ma aha marka sheekadii iyagoo wada dhowr meeloodna waa ka dhicisooy howlahaas howlo faragelin iyo gacmo-gacmeyn lagu hayo weeye waxaana doonayaa in anigo qalaabsan dharbaaxintana walaalahay oo aan idhaahdo dagaalka joojiya wardantiina garta maxamed garaad iyo cabdi garaad mali idin walaalo waxaa tihiin mali maganimadiinuna ilaahay halkaas idinku dejiyey idinku abuuray kuna abuuraan doontaan waa abti iyo seedii war waxaad joogto wiilasha waynu keli doonaa maanta xabadda lala dhacayo war waa laydin dowranayaa wardantiina garta idinkaa walaalaha walaalnimada helin joojiya dagaalka saasaan ugu baaqaya arrimahana waa arrimo gacmo-gacmaysan oo loo dhex jiro waxba noo sheegi kartaa markii uu markuu madaxweynaha khaatimo state uu yimid gobolada khaatimo state waxaa soo dhaweeyey mudane cali khaleef waxaa soo dhaweeyey ciidamadii cali cadooshe ciidamadaasi waxay soo dhaweeyeen anagoo telefishinada ka arkanay isla markaas iyagoo calankii soomaaliya lulaya ayay kusoo dhaweeyeen xaggaasi wax ma nooga sheegi kartaa safarkii uu socdeen jabuuti iyo marka soo laabteenba abiya madaxweynuhu waa ka duuray horta waa deegaankiisii oo isagoo madaxweynaha hata ahaa halkiina su-aashaas ku badan baa weydiiyey magaalo horta marka hore waa magaaladiisii dhinaca baashi iyo professor cali khaliif generaalka iyo dhinaca professor cali khaliifna waa laba nin oo horta aqoonta xageerso ah de ha isku ahaadaan ha kaa dhex galo cali cabaashi miyuunahay ninkii ciidamada maamulka somaliland haystay nacam waa isagii haddana waa isagii kan calanka wata ee madaxweynaha soo dhaweynaya ee salaamaya ee ka hortegay ee sii kaxeeyey ee soo kaxeeyey taasi waxay ku cadaynaysaa in khaatimo state ay u madax banaanaan doonto dhulkeeda iyo dadkeeda iyo dalkeeda nabadgelyada iyo heshiiska jira ayay u tahay mascaanood oo muddo gacanteeda ka maqnay inuu kusoo dhex maray madaxweynuhu calankii soomaaliyeed lagu soo dhaweeyey calankii soomaaliyeed kaadal cabsi loo dhigay ciidamadiisii baabuurtiisii uu mascaanood kaga tegay markay jabuuti aadeen kusoo noqday lagu soo dhaweeyey ka baxay waxaan u cadeynayaa ummadda leh khaatimo ku biiraysa somaliland baa khaatimo ku biiraysa iyo kuwa anaga nagamido meelaha ka qeybgalay oo si baad u qabanaynaa qabiil iyo waxaasoo dhani inay waxba ka jirin tahay khaatimo u taagan tahay state soomaaliyeed uu xukumo professor cali khaliif gareed dhinacan baashada uu yahay nin u dhashay khaatimo state sheekadii horena sheekay ahayd wariye ha u dhashiyo ninku inuu dhashay iyo inuu deegaanka khaatimo kasoo jeedo waan ognahay laakiin waxa uu aaminsan yahay oo isagu mas-uul ka yahay uu xil u sidaa waa maamulka somaliland marlaba waa jirtaa laakiin xilka uu hayo iyo ciidanka uu hayo iyo hubka uu hayo waa khaatimaaya intaba hubkani waa hub laga khaatimo oo weliba family yihiin isaguna waa khaatimo markii hore siday ahayd shaxdu haddana sida u taallaa siyaasadda adduunkana anigu siyaasi maahi laakiin marka la fasirayo waxa weeye sirzaak wax
استفزاز ومرنا ولا هذا أو إن ماشي كبير على طي يمشي كل ما تحاول كلام مركز هوا على حكي كان هو على مغرب كنا على كسر نقصه زي بدوينها شاشة aad aad u mahadsan tahay haddeer waxaad ka dhawaajinaysay dowladda cusub mudane farmaajo uu hadda uu hoggaanka u yahay inaad waxaad carab ku dhufatay inay nagu jirin wax khaatuma ay mas-uul u ah amba khaatumo matala sidee bay ku dhacday 4.5 baa loo qaybiyey haddii aan khaatumo ka hadalna amba reer ahaanba ka hadalna khaatumo waxa weeyaan wixii matalaan ay kasoo jeedaan waa deegaamada degan yihiin dhulbahante markaas miyaan la oran karin inay xildhibaanadoodii iyo wasiirkoodii iyo intii ay xaq u lahaayeen bayna ku leeyihiin xaggaas alxamdulilah intii waa joogaan nimanku baantaa laakiin ma aha nimanku baanta way yihiin laakiin maamul ahaan kama tirsana khaatumo maadaama annagu khaatumo ahaan ana xildhibaanadan dooran nama masalaan marka hore oo puntland baa dooratay oo tahay nimanka soo dirsatay iyagayna u shaqeeyaan oo wakiil u yihiin magarad khaatumo ahaan waxay dhibaan oo aan ku leenahay ma jirto khaatumo ahaan wax maamulo aan ku leenahay hal wasiir baa jira wasiirkaasi waa run waa ninka khaatumo ah isagana ambalaygaasaamadooda baddaasiisay kalluunkiiba la guranayo oo dalkiiba iibsaday baa layidhi halkaa adigu tag waa meel lagu kala tegay laakiin waxaanu ka sugaynaa maamulka xaqayaga waxaanu xaq u leenahay dalka 4.5 aanu ku heleegno ayaanu ka sugaynaa maamulka madaxweynaha iyo dhammaan dowladda waxa weye taasaan ku cadaynayaa inaanaan ku lahayn waxba hase ahaatee aanu nahay mambar soomaaliyeed ummadda soomaaliyeed ee meeshaa joogta oo hambaleynayaa khaasatan meesha hawiyey hadda u hambaleynayaa oo ah ururkii isku imaanayay ururkii hawsha wadi waa la istigay waana dhacay laakiin waa dadka keliya ee soomaaliyeed ee soomaalinimada ku dhimanaya ilaa galmudug u taagan waxaan kusoo dhaweynayaa weliba dekada cusub ee galmudug waxaan leeyahay ummaddu gacanta hala qabto hala garab istaago sababtoo hadda kuwii kale waa la isdiyey in maaragtay soomaalinimada loo dhigto weligoodna kama maqan soomaali manihin aad iyo aad baan u hambalyeynaya dowladda cusub waa si fiican aad iyo aad baan kaaga mahad celinayna khadka lineka inaan furno khadka linekuna noo furan yahay waan arki doonaa insha allah bal wixii soo wici doonaa su-aalahaaga wado waxaan kaloo baabu dirayaa ummadda reer khaatimo horta ilaahay waxaan u barayaa ummadda islaamka meelay joogtaba iyo ummadda soomaaliyeed ummadda khayr qaba in ilaahayna siiyo xamal khayr qaba nabadgelyana ilaahayna siiyo waxaan u dirayaa ummadda reer khaatimo dhammaanteen maqaaradkii maxaafid warhooy dalka iyo diinta iyo dadka waa muqadas xornimadu waa muqadas magacu waa muqadas khaatumo waa geed aynu abuurayno oo jiri doona maamulku waa isbedelaya war waad ogtihiin oo jibsi inaynu noqono ayaa laynoogu talangalay magaceenna in la fikiraan laynoogu talangalay labadan maamulba dagaalkay ugu soo qaadeen ninkeeni waa si fiican axmed waan ku yara hakinayaa adiga oo line kusii jira baaqaaguna u socon doonaa khad telefoon baa soo dhacay sida hadda naloo sheegayo hallo waa lagu maqlaa magacaagii xayaa kasoo hadlaysid magacayga waxaan kasoo hadlaya dalka canada gaar ahaan magaalada london ontario kusoo dhawow maxaad ma-su-aal amba fikir aad soo jeedinaysid maya waxaan soo rabaa inaan soo jeediyo fikir ku aadan dadka reer Awdal State meel kastoo ay ku dhow yihiinba waxaan leeyahay reer Awdal State waxaa laynooga baahan yahay inaan ka qayb qaadano wadahadalada maxaan ku dhahdaa waqooyiga Soomaaliya ka socda oo bilaabay Professor Cali Khaliif Galay khayr allaha siiyo professorku waxa uu mayjawi lagu wada hadli karo oo dadka waqooyiga ay dib ugu wada fadhiisan karaan hore waxaa u dhacday oo u jirtay in
waqooyiga Soomaaliya dadkan ay ku danaysanayeen shacabka ku nool waqooyiga oo ku dulmaayeen laakiin maanta professorku waxa uu tusay tariikh oranaya wixii hore waxba kama jiraan goboleedyada ka jira maamul kastaana wuxuu ka yahay oo madaxbanaan yahay dalkiisa oo dadka inay beereen dadka mataqaana u yeeriso waxayna dadka diyaar waxay maaha marka waxaan leeyahay oo ka qayb qaataan baa looga baahan yahay waxaa looga baahan yahay inay mataqaana qaybtooda qaataan wadahadalada waa soconayaan ninkii aan kasoo qaybgalin yeeri mayso waxaa la rabaa dadka reeawda in u diyaar garoobaan way ka hadlaan damadooda ka hadlaan inaan noqonin ummad kala daliilin noqon inaan horgalo noqonin in khiyaaliga iyo laga baxo iyo wax aan macna samaynin ama meel gaaray laantu meel gaarayso 20 sanadood ayaa waxa ay beesha dhexe ummadaasi hor socotay oo loo taagnay oo u yeelinaysay oo u gudoonaysay waxaana la soo ogaaday اختلاف inuu jirin cid la hadaltana sidaan jirin macaawinada humanitarianka waxaan ahayn oo ay Soomaaliland maanta ay ka jirto in hadda waa soo orday oo soo xigtay tababarada reeruhu waadiba rabay inay doodaan اختلاف helaan oo ay mataqaana ay nabad kula noolaadaan waxaana rabaa inay nabad ku xisaan haddii koonfur loo tegayo iyo haddii reeruhu mataqaana ay baaxira isku yihiin waxaa la rabaa in reeruhu waadiba wada xisaan سوي يعني اللي هرو وأنت بروفيسور علي خليل سليم ولا هنا حاطط في وهذا هو أمري أبي أرجع تصير صعدة والجمهور ويجي تكلم الغوري وإحنا نقول الله كرام لأن تجاري كرام الأمور هي كمستقبل تعرفها وطريقة تسوي أنت مثلا سوق لها واحد سلام يضال بالبيت في يدمان ناوي هذه أدود ما صنتهاي وكجمع علينا أحمد kusoo dhawo baaqaaga sii wado insha Allah waan soo gabagabayn doonaa waqtigii programku soo xilmeeyay waan joognaa waxaan u mahadcelinayaa baaqa aan jeediyay anagoo ku daraya ummadda waqooyi inay isu yimaadaan danahooda ka hadlaan beesha dhaxana ay iska daayaan duleedka iyo sheekada runta iyo xaqiiqda isugu yimaado sababtaa waxay waxaan u qaybsadaa koonfur xaq waxaan ugu lahayn inama siiyo horena runtii laynoma siin jirin uma inaan heli jirin waxaan qabnaa inaan waxayna helayno nabadii caafimaadna ku wada noolaan doona beesha cadixana ay ka tansiiso howlaha ay ku jirto iyo waxaa dhibaatada keenaya intii ka shaqayseen oo tahay iyo baqasanaya waxaan la hadlayaa gobolka tahay degmada buuqoodle walaalayaal maanta waxaan leeyahay ingiriisiga iyo airport oo wax qaaliya waxaynu haysanaa nabad waxaan leeyahay nabadda inaan iska daacdinay aynu la shaqayno maamulkeena roobkii wuu dacay dhaqaalihii waa inoo furay reer walba waxiisa mahelayaa iska xaniina yeela haddii olaa waa haddii horasula waa ulul amri ulul amriga inaga aynu doorano aan galaad nagu qabsan gacmahaadinta iyo gacmeynta dadka lagu haya ee dagaalka ka riday waddankeena oo 200 weli nooga dhimatay walaalayaal dagaal wiil baa ku dhasha dagaal wiil baa ku dhinta kuma dhasho walaalayaal ama xisada dadka mas-uuliyiinta ayaa xalay aakhiro wala muujin doona aqoonta dadka ugu dilaayay kaala u dulsaaran yahay kaalaha la mariyey iyo eegaya mas-uulka ka tihiin walaalayaal ugu tula حقوقنا حقوقنا حقنا تسامحي وأنا كبرحي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته aad iyo aad baad mahadsantahay Axmed insha Allah waana kulan dambe xagga naga daawanaysan waxay ahayd Galbeed TV iyo programkii toddobaadka kaasoo kaga hadli jirnay arrimaha siyaasadda iyo wixii dhaqanaba ee Soomaalida soo gudboonaada wassalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuh waana kulan dambe